Hormuud Foundation ayaa deeq isugu jirta raashin 5 neef oo geel ah iyo dharka ciidda waxa ay guddoonsiisay maxaabiista ku jira xabsiga dhexe ee Xamar. deeqdan ayaa ka koobneed min 100 kiish oo isugu jira bur, bariis iyo sokor iyo sidoo kale 50 tan oo timir ah. Taliye ku-xigeenka ciidamada asluubta Soomaaliyeed Cabdikariin Cali Afrax ayaa ka guddoomay hay'adda Hormuud Foundation deeqdaasi la gaarsiiyay xabsiga dhexe ee Xamar. waxaan marqaati ka ahay hay-addan Hormuud Foundation gargaarka ummadda Soomaaliyeed anigu inaan ku qaldanahay malayn maayo ogaalkayga waa hay-adda koobaad waa talabaad waa saddexaad baan oran karaa waa ka guddoonay marka ugu horeysa hantida ay noo keeneen walaalaheen Hormuud Foundation waana uga mahad celinaynaa. sidoo kale waxaa madashaasi ka hadashay Maryan Amiin Nuur oo ah agaasimaha dhanka arrimaha bulshada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Khayre. waxa ay Hormuud Foundation uga mahad celisay garab istaaga ay mar walba la joogaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa u baahan gargaarka. waxaan joognaa xabsiga dhexe ee Muqdisho waxaana la joogo wixii salaan ahay taliyaasha iyo waxa gudbiyo gudoomiyihii anigu aan soo gaabinayo waxaana la joogo taliye ku-xigeenkii ciidamada asluubta Soomaaliyeed iyo gudoomiyihii Hormuud Foundation iyo kudigii maamulka Hormuud Foundation. waxa aad arkaysid oo deeqa ayay ku soo deeqeen oo la cunto oo la dhar iid oo la hilibkii la qali lahaay. waxaan leeyahay waad mahadsantiin Hormuud waa sanadkii saddexaad oo ka qayb qaato goobtan aad ku wareejinaysiin nimcadan faraha badan ee ugu tala gasheen walaalihiin xiran. dhanka kale hay'adda Hormuud Foundation ayaa $5,000 waxa ay ku wareejisay naafada ciidamada xoogga dalka ee ku jira isbitaal Martini. waxaana ka guddoomay Cabdullaahi Faarax Shuuriye oo ah gudoomiyaha naafada ciidamada xoogga dalka ee ku jira isbitaal Martini. sidoo kale waxaa halkaasi hadal kooban ka jeediyay afayeenka naafada ciidamada xoogga Cabdullaahi Maxamed Ducaale waxa uuna mahad ballaaran u jeediyay Hormuud Foundation oo mar walba isku howsho sidii ay gargaar u gaarsiin lahayd naafada ciidamada xoogga ee ku jira isbitaal Martini. waxaan hambalyo iyo bogaadin iyo ma garanaysaa ay duco u dirayaa shirkadda Hormuud. ilaahay ha barakeeyo. sanad kasta bisha soo qaad way noo keenaan lacag iyo timir iyo adduun oo dhan bay noo keenaan iyo macmacaan waana uga hambalyeynayna waana uga mahad celinaynaa ilaahay hortiisana ha ku barakoobaan. ugu dambeyn Cabdullaahi Nuur Cismaan oo ah gudoomiyaha hay'adda Hormuud Foundation ayaa ka warbixiyay deeqdan kala duwan oo ay gaarsiiyeen xabsiga dhexe iyo sidoo kale isbitaal Martino ay ku jiraan ciidamadii ku soo dhaawacmay ama ku waxyeeloobay dagaalkii 77. maanta oo ah 4tii bisha Ramadaan iyo 9kii bishii May 2019 hadda waxaan joognaa isbitaalka Martini qaybta deegaanka u ah naafada xoogga dalka Soomaaliyeed annaga oo guddoonsiin doona deeq ama gargaar anagu tala galnay bisha barakeysan ee Ramadaan inay u kaalmeystaan. waxay ka kooban tahay 2 qaybood. qayb hadda ayaan wadnaa qaybta kalena insha Allah taala labada maalin oo soo socota ayaan soo gaarsiin doonaa. qaybta hadda wadna waa lacag kaash ah oo cadaan ah. qaybta kalena waxaan soo gaarsiin doonaa oo ah timir 2 maalmood gudahood insha Allah. dabcan sidoo kale hore waxaan soo marnay maanta xabsiga dhexe ee magaalada tan Muqdisho oo aan ayadana gargaar mataqaan aad iyo aad u ballaaran aan soo guddoonsiinay. dabcan waa barnaamij aan sanad kasta bisha Ramadaan aan fulino. hay'adda Hormuud Foundation ayaa bil walba oo barakeysan waxa ay deeq kala duwan gaarsiisaan dadka tabaaleysan ee u baahan gargaarka oo ay ka mid yihiin dadka maanta ay hay'addu booqatay.